sidaas annagu u joognaa niman Maraykan noo yimaadeen Maraykanka waxay yiraahdeen niman safaaradda soo qarxiyay ayaa dalkiina joog nimankaasaan rabnaa haddii kale waa idin dhibaataynayna nimankii hadda waxaan nidhi annagu marka hadday nimankaas joogaan waxaan isnidhi hadda annagu hadda dalku sidaan u haysanay oon gacanta ugu haysanaa ku ogeyn wax naga hoos abuuran ma aanan ogeyn waa is weydiino war nimankaas maxay yihiin haba la goobo niman dalka naga gubayay maxaan dhahnaa naga baxa aan dhahno ragga saasay qabeen ragna hal dhiibay qabeen oo lacag badan lagu goobayaa hal gato waa isku kaana qaban weys waxaan ku wada markii dambe isku afgaran oo intii hoos ka qabtay waxay rabaan ka qabeen laakiin inta nadii ka wax garanaysay waxaan soo jeedinay nimankaas aan dalka nooga baxa dhahan ninkaan Maraykan oo nagu soo noqonayaan aan sidaas maaragtay ku samarsiin sidii markaan sameey maagnayna raggii saxaabta aan ahayn oo qaraabada ahayn oo is ogeyn oo nin hubba ku ogeyn iyo awood min soo istaago laqis soo siiyo waxay yiraahdeen annakaad noo jeedin haddana nimankaas ba ka hadashin sidaas dagaal ku bilow waka okay ma jirtaa lacag in la keenay oo qaar kamid ah lagu baayacay nimankan maxaakiimta iyo qowmruubiska ay sheegeen wadaadada wallahi arintaas waa barbagaan meel maray waxa la rabaa barbagaanku hadduu maartay luga yeesho dee moogta wax lala yaabo weey barbagaan waxa weey nin Soomaaliya annaka dad qabaa'iladu isku tagayaan ahay aan nin kastaba urur ha haysto oo ciidan ha haysto laakiin nin walaalkiisa waa la qaadanayaa nin loo quuri karay ma jiro marka sidaas maaragtay jirtay marka arintaas marka lacag la isku baayay ma jireen laakiin waxa naloo yiri maaragtay samaysta waxaan tan naloo yiri samaysta urur samaysta urka argas la dirk annaku ma lahayn fakirkiisa waa naloo keen dadku waxa weeye dadka Soomaalida ah waxa ku soo dhaca waa qarsadaan laakiin anagu inaan qariyo ma rabo Soomaali iyadu wax fakartaa ma jirto waxaas dalkan ka joogo ka jiro dhan Soomaalida waa loo soo fakaraa waa loo dhiibaa waxaas aan loo dhiibayaan la yiri waxaan meel mariye markaan iska wareysanana war meel mari kara iyo laba meel mari kara is weydiinayna raga ku dhiirado yiraahdeen waa meel mari karnaahe ma fahmin kan dhaqaalahan ka rabnaa aan meel marin sidii baana shaqaysay markii hal meel mariyay la yirina hada bamba qarxay mumkin qarxana hada waxa weey ragii ku qarxa hada waxa weey waa waay aragnimo waa waay waqtigiisa waa sax waka okay bamka dadku ku qarxay de ragna waa joogan ragna waa dhintay inta ka sii noolba waa yar tahay haye bamka qarxay waa maxaakiimti صح ما صح صح عادي وقحنا صح وي محاكمتي واستشهاد صح وي بل كورن دغالadaas wada gashay wallahi dagaalkaas hadda dagaal muddo dheer socday ma ahayn dagaal muddo gaaban socday oo ahaa waxaana weeyo ragga qaarkiis waxay islahaayeen meeshii dagaal ka dhacaba waxay islahaayeen awood buuran ma jirtay hebel aan awood yar ayaa ku ciifi doona ku daawo isaga marka hebel inta daciifo hadhow isagoo ciidankiisi kala barmeen oo xoogaa dhowr baabuur la caranayo adigu inta keensato awooddaada aad ku buuxsad sidii baana nin walbaba ninka kale ugu sug wala isku daawan nin walbaba anigu haddaan hoos iskugu tashaday wax iga qaadi kara ma leh hebel ma fahamta waxaa la dirirayaa waa wiilal yar yar oo dhowr oo akayaal wata ayuu qabay lama ay dhicin magaaladii oo dhan waxa weey magaalada marka hore la dhisay qalbiyan loo dhis kow hadana naloo baray ragga nagaas inaan nahay rag maaragtay Ilaahay ka dheeraaday magacyo xunna naloo baxshay sidaas marka fududeysay ma fahamta in arintaas nala kaga adkaado waayo shacabkii oo kacdoon sameeyay baa u garab galay maxaakiimtii sidaas nala kaga adkaado markii nala kaga adkaadayna hadda waxaan ku heshiinay inaan kala tagno waa kala tagno laba meel buu qabtay ciidamadii Itoobiya ku xigo la soo galiyay ciidamada Itoobiya in la soo galiyana waanu ogeyn oo waa naloo sheego waxay nagu yiraahdeen haddii la idinka adkaado annaka ciidan u keen okay intiina Itoobiya ka weyn u tagi doonaa intiina aanu tagin idinku waa jabteen
dagaalkeeba cabdow idinku xanuun badneed ku ogaateen ilaa nin ciidan oo jabhada baad haydeen inaad maanta jabteen oo nimanka maxaakiimta inay isu dhibtaan dagaalkeed ku ogaateen inaad leecateen wallaahi oo saalaasha qaadeen qalad noqotay 4 dagaal oo galgalata laga galay ayaan anigu ku yaqiinsaday in halka adkaanayo dagaalkii halkaan aan ku galnay oo lambar 4 lagu galay waxa weeyo tijaabo ahaa laakiin dagaalkii galgalata ku galnay dagaal dhameystiran oo runahoo ahaay dagaalkaana ayakuna markaas uma ay diyaar garoobin waxa weeyo ciidan xoogaayo maaragtay dadka iska hormarinayeen ayaa naloo soo diray laakiin dagaalka sida runta nolola diray kii galgalatu ahaa awoodooda markaan miisaanay Soomaali qof ka maqnaa ma jiro koonfur iyo waqooyi iyo kilinka shanaad iyo dhulka Kenya haysato waxa weey waa ka dirireen meesha marka si dhameystiran nalkaga adkaanay waxa naloo diray xabadu subaxdii inta bilaabataan habeenkii isu soo hoyneen marka 4taas cisho ayaan garawsaday inaan nimankan loo barbar dhigi karin sidaan anaku u habacsanahay ama isku hakranayno iyo siday ku socdaan wixii ka dambeeyana nin walba ninkiisu ilaalsanay wuxuu isla kalba idinka guuleysanaya ragaaga dhaqaalayso rag la soo kala had ha okay waad jabteen adigu waad iga sheegay 4 dagaal kadib baad ogaatay inaad jabaysaan hubkaaga xageed geysay wallaahi hubkii maxkamadaha qabsaday badankiis maxkamadaha qabsaday markay qabsadeen hadee waxa weeyo waxa weeye hadee waa hubkii qabsadeen hubkii rag fara badan oo hubkii laga qabsaday aan kamid ahaa Muuse Suudiya kamid ahaa Bashiir Raaga kamid ahaa waa ka markii hubka laga qabsaday adiga iyo ragii kale rag kale hayno joogan adigu xageed qabatay Ethiopia tagan adigu Ethiopia tagtay halkeed ka baxday gobolada dhexe muqdisho waa joogtay marka wadadeed noqotay sidee u baxday bal nooga war waxaan u baxnay halkaan ka baxan adiga anakoo dhowra oo hogaamiye jidkaan balcadan mar gobolada dhaxan aadin waa si kala leexano haddana dhinacaas iyo bariga hoose eelbuur agtiisa meel ahaan tagna oo dirir la yiraahdo dirir markaan tagnana haddana waa ka sii tagna anakoo dhowra haddana dhinacaas iyo mustaxiil aan galno okay Ethiopia sidii ku gashay